baarlamaanka dawladda Puntland ayaa ansixiyay xeer ilaaliye ku-xigeenka dawladda Puntland iyo xubin kamid ah guddiga doorashooyinka Puntland oo uu dhawaan soo magacaabay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. golaha wakiilada ayaa isla fadhigooda waxa ay warbixin kaga dhageysteen wasiirka dekedaha iyo amniga badaha Puntland. faafaynta warkaasi waxaa inoo diyaariyay wariyahana Maxamed Bilagelle. kulanka mudanayaasha baarlamaanka dawladda Puntland oo uu shir gudoominayay ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Cabdixamiid Sheekh Cabdisalaan waxaa ajandaha kulanka uu ahaa dhageysiga warbixin ku saabsan markabkii dhawaan la sheegay inuu ku quusay xeebta degmada Calulaha ee gobolka Gaardafuu iyo sidoo kale ansixinta ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee Puntland iyo xubin ka mid noqonaysa guddiga doorashooyinka dawladda Puntland oo dhawaan magacaabay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali. ugu horeyn wasiirka wasaaradda dekedaha iyo amniga badaha ee dawladda Puntland Siciid Maxamed Raage oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasiiru dawlaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda oo mudanayaasha baarlamaanka ka hor akhriyay warbixin ku saabsan markabkii dhawaan la sheegay inuu ku degay badda deegaanka Mudhacanyo ee gobolka Gaardafuu ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay arrintaasi isagoo sheegay in markabkaasi oo shidaal waday isla markaana laga lahaa wadanka Yemen uu ku degay biyaha dalka Cumaan taasi oo xeebaha Puntland u jirta in ka badan 400 kiiloomitir. warbixintii ka soo baxday haddii la noqoto ciidanka badda haddii la noqoto oo la yiraahdo nuclear maritime trade operation dhammaantood warkooda markaa warbixinahaan soo bilowday locationka markabkaasi ku degay waxa weeye 204 waxay jirtaa dekeda Cumaan Salaam. warbixinta markaa la soo koobo waxa weeye dhibaatada hadda ka dhacday nadowey markabkuna wuxuu ishkaal 397 oil security markaa ka raacaya dibadda lagu arkaayo wasaaradda sarifka saliidada guddoonka reportka waa siiyey aqoonta waa ku yimid hawsha markabkaasi ilaa hadda intaan ka warayna haddaan wax ka soo diray dibadda wasaa waqtahay xaalisla qeeyay inuu markabkaasi ka fogaa suracada ku sheegay qaraxa explosion meesha ku sheegay wana waa ka dagaalamay wada yimid xubno ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee dawladda Puntland ayaa wasiirka weydiiyay su'aalo kala duwan oo la xiriira xaaladda markabkaasi iyo xaqiijinta wararka la xiriira inuu ku degay xeebaha Puntland. ma warbixintii aad collective soo sameyseen miyaad barnaamij u jeedinaysaan base wax side effect-ga meeshaas dhacay baa daraasad inta tagteen oo soo saamiseen oo murcaya tagteen oo ummadii community-da aad weydiiseen marka intaas soo aruuriseen baad waxaad explanation ka siinaysaan soo deegaanadeena inay kiiskaas ku dhicin waxaa jira shaygaas oo kale markuu dhacay waa shay tuuganimo ah annagu waxaan aaminsanahay in environment kale ahaan wadankan inay wax weyn gaareen waxaan aaminsanahay economically inay damid ku tahay hadda intaa wadayaan warbixinta waxaan la hadlayaa maqacayo waxaan weydiinaya ma jira qaraxa meesha haa ragga dumar waxay waa haa qaraxa waanu yaabnaa qaraxa waanu taasoo kale hadday ka dhacdo xuduudkeena hadday ka dhacdo oo markab sidaas lagu soo dhawaado wax ku talagala golaha wasiirada laga sameeyey oo maraysla soo qaaday tala yar baan ku darsan lahaa su'aalihii aan qabay horaan loo weydiiyey taladaasuna waxay tahay marka arrimahan oo kale ay dhacaan in wasaaraddu ku tala gasho inay dadweynaha warbixin siiso oo press release si ay u fududaato fahamka waxa meesha ka dhacay wax badan baa la isla dhex marayay waxaana keenay waxa weeye warbixin la'aanta iyo xog la'aanta ayaa waxay keenaysaa in meel kale lala aado. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dawladda Puntland mudane Cabdixamiid Sheekh Cabdisalaan ayaa soo jeediyay in deegaanka Mudhacanyo ee degmada Calulaha ee gobolka Gaardafuu loo diro wafdi ka socda dawladda si loo soo xaqiijiyo wararka sheegaya in markabka uu ku quusay xeebaha Puntland. way muuqataa yani mas'uuliyadeena insan ugu baranayno iyo dareenkina sidoo yahay waa aragnaa
wasaaradda ruuxeedu tabarteedana waa naqaanaa dadaal intii muxuu ahaa tabarteeda intii ay ka samaysana waa inoo sharxday waxaan u malaynayaa iyana hagar ma gelin inana hagar ma gelin waxa keliya oo meesha yaalla waxa weeye weli waxa dadkeennu ay ku cabanayaan oo ay sheeganayaan iyo riboodka aynu hayno intuu uu leegyahay baa waxaa moodaa si inay wuxuu ku kala duwan yihiin wasaaradda waxaa ka codsanaynaa sida raggu ay mudinaan soo jeediyeen si dadkeennu ay u qancaan waxa yaallana oo dhabtaana loo gaaro hawshaa intaa inaysan kaga seexan intii hore oo ay sameeyeen in ka badan oo dadaalaya inay sameey waayo waa environmentigeenni waa dadkeenni waa nolosheena qayb weyn bay ka tahay ugu dambeyn mudanayaasha baarlamaanka dowladda Puntland waxa ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee dowladda Puntland Maxamed Xareed Faarax iyo Cabdiraxmaan Diiriye Samatar oo ka mid noqonaya guddiga doorashooyinka Puntland isla markaana labadoodaba dhawaan uu magacaabay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Maxamed Bileegele warbaahinta dowladda Garowe.